قال هذا مركي الله سوق بتقارك والنبي يقول حول جري مسكيته كل حرة ثمامة بن عثال كمذا في صحيح البخاري رحمه الله سري النبي قدري مركا سنين سوق بتان مركا سنين النبي الله كاني ما قرنا سنين كان ما قرنا إنه وثمامة بن عثال وملك اليمامة هل قال يقول حرة يقول مسكيته كل حرة يقول حرة ساجد كواجل markaasaa halkii baa lagu dhaxidhay markaa nabigu reerihiisii u tagay cunto uga soo qaaday hashi irmaanida nabiga noo maalay caanaheegina uga soo qaaday markaasuu nabigu halkii ugu keenay oo hawaa oo nin xidhxidhan markuu cuntadii siiyay oo caanihiina ka bisiyay buu ku yiri yaa Thamaama iska soo islaam markaasuu ma islaamay in taqtul daadamin wa in تنعم على شاكر وإن تريد المال فسل ما شئت بكير يا محمد هذا أنا جاي دشيت بكيري نن دي جيس دول كون دعيا ميهيب طول باي قدام بيجي هذا قال لي ستنا ما أنت بحريقة يجسي دي سنة نن أبال عليان هاي بولانو وأنا أبال بدي هذا المال يدي دون سنة شيء واحد دون توقفسينه لكن حريقة يجسي ده markaa nabigu alayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yiri may kuma sii deynina buu ka yiri habeenkii buu halkii ku bariyay cashadii buu nabigu hadana u keenay hashi nabigu caanaha uu ka maalayay isaga looga maalayay ayuu nabigu alayhi salaatu wasalaam isaga ayuu u keenay caanihiis markaasuu ku celiyay hadana uu iska islaam nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam ayaa nin gaala oo mushrika caanihiisii intuu keenay siinaya xeraadku ku casheynayna intuu soo qaalibu hordhigaya markaasuu waliba u khidmeynaya u adeegaya uu leeyahay soo islaam muxuu nabigu ninka la magan yahay inuu naar ka badbaado masab ka dooni maayo lacag ka dooni maayo shuhrad ka dooni maayo waxa kaliya ninka nabigu ka doonaya waxa weeyaan inuu soo islaam markaasuu ku celiyay haddana yaa Muhammad haddaad idishid dhiigaygu dhulka u dhici maayo waa layga dambeeyaa buuri haddaad igalladaysatidna maanta ood isii daysid ood xarigga iga sii daysidna nin abaal celiyaan ahay buuri anigu ma ciyaar nin kaftamaya ma ihi buuri abaalkaaga waan gudi haddaad adduunyo doonaysana xoola waxaad doonaysa i weydiiso madax furasho waan ku siinaya xarigga iga sii daa markaa buu nabigu calayhi salaatu wasalaam ku yidhi may markaasuu dee waa hagaag aniguna ma islaamaya buuri haddana maalintii saddexaad sidii si leeb buu nabigu ninkii ugu khidmeeyey xeraadkii buu u keenay caanihii buu u keenay markaasuu yidhi yaa Thamaama iska soo islaam sidii uu isaguna ku jawaabay markaa buu nabigu saxaabadiisii ku yidhi dilkiisu waxbay noo tari maayo xadhigga ka sii daaya iska socday buu yidhi sii daaya markii la sii daayey magaaladii Madiina ka baxay beerihii beer ka mid ah buu galay ceel ay lahayd buu biyo ka soo dhaansaday uu ku soo qubaystay oo uu soo maydhay masaajidkii nabigeena uu ku soo noqday isaga oo leh ashhadu an laa ilaaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu usalli ya rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam markaa buu yaa rasuul allah diintaadan diimaha ugu necbaa laakiin maanta laga bilaabaa diintaadan diimaha ugu jecelahay dalkaagaan adduunyada ugu necbaa magaalada Madiina ayaan magaalooyinka ugu jecelahay wajigaagaan wajiyada ugu necbaa maanta laga bilaabana dadka ilaahay abuuray adan kugu jecelahay buu ka yiri habadle ninkaas saddexdii maalmood ee masaajidka nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu ku dhaxidnaa masaajidku waa meesha raxmadda ilaahay ku soo degayso waa meesha malaa'igtu ay imanayso waa meesha muslimiintu ilaahay ku xasuustaan waa meesha qofkii soo galaba loo daba dhaafo weeyaan waa meesha nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu u doortay inuu ummadiisa uu ku tarbiyadeeyo haddii dad diin la barayana ahdiga nabigeena masaajidka nabigeenu ku bari jiray haddii dad la islaaminayana masjidka lagu islaaminayay haddii jamaaca la diray masjid buu nabigu ka diraayay haddii wafuud nabigu qaabilayay masjid buu ku qaabilayay laana masaajidku waa aqalki ilaahay meel cid kale loo nisbaynayo maaha fadhiga aad fadhiisatay baad ka faa'iideysan iska daa wacdiganba wacdiga waa dad way sheegayaan xataa haddaad waxba ka fahmi weydo fadhiga masjidka aad fadhidaa ilaahay kugu naxariisan laakiin dadkeena maxaa fadhiga masjidka ku adkeeyay maanta
مساجدي ومهجورة ولا جه جرودي هل كي عمرا مقاحيها عمرا ما أنت مجالس لقاتك عمرا مهرده الدوية أيا عمرا أفضل إلا ما تنقى ساعة الدوية ميلي ومعمور لكن مساجد الرحمة كسر دقي سنة ومهجور ما أنت أحب البلاد إلى الله المساجد ملك إلهي ميلي وجعل ومساجد ميلي إلهي وجعل نفتو كور ديسا ما أنت ونفتين وأي كد ديسا ميلي إلهي أرلو وقل نعبانا نفتين ما أنت ويكون حصل إيسا محاب بدل نكاس سبح دام الموت مساجد نبينا عليه الصلاة والسلام خير كي وكم مغلايي خير كي وكأركايي أعماسي مسجد نبينا صحابة أي كقبنيين أيا نلوشي سيله نكا كبدلي برقابوا يا رسول الله عمران السعودية ما نسي السعودة بسوان اسكن نقضى برقابوا نبي ما يرضى عمر يسو لكن وحو نبي مركا وشيغي أركانتي عمره وشيغي إلا عمره يحشك وصو جرين زمن جاي لقي عربته حتى ويحجين جرين وين عمر يسن جرين برقابوا نبي وشيغي أركانتي عمره صدا markaasuu maka soo galay waxa la waa saxaabiga ugu horeysay magaalada maka soo gala isagoo mulabbiya isagoo labbayk allahumma labbayk la sharika laka labbayk innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la sharika laka wa saxaabiga ugu horeysay ee talbiyada islaamka la yimid tawxiidka la yimid ee magaalada maka soo galay buu hal Thamaama radiyallahu anhu Quraysh ayaa markiiba ku soo ururtay waxay ku yiraahdeen waxaan soo gaadhay Thamaama ina diinteeni aad ka baxday maxaa ka jira markaasuu yiri marka horeba diin man haysane diintii nabi maxamed uu leeyay dib raacay buu anigu salaamada dakhaltu diina muhammad buu ka diintii nabi maxamed uu leeyay ee islaamka ilaahay loogu soo dhiibay ayaan anigu maanta laga bilaabo aan ka mid ahay ehelkayga buu yiri taad sheeganaysaa horaan uga baxayba arku عمر يستي والله قد دعي لماذا لأن نكن وبقر انتظر لقعنه حنطة شعير كان لقعنه بلقي سوك بحا قريش ويتقانا مركز وحيث هذا نكا هاي نقول تابنين هبان نقول تابتان لقالوه نجري مرأة اللي مركو عمر دي دم يستي سيقوي مدو كويري قريش يدقيستا ما انت لقب بلابا حنطة حبا حنطة شعيرة دلك يجي مني ميسو إلا نبي محمد وأمر السيوسي دا يقول هذا موياني إما إنكم دين الإسلام كسوق له موياني لا بد أحوك ما دحيان بودي وأنك أبوه الرجال على الإسلام ماذا درادد قريش أصار حصار عنقبتين إيه بقى عنقبتين تا يلا سارة ريا سارتا إسلام قال سارة هل هو سارة يا لأن أدوية وجعلات أدوية بدوينيس وحي قالوا عبودين بدأنا لا عبودين marka way ka adag yihiin ogow khadkoogii baad gashay markaas markii uu dalkiisa ku noqdayba qoomkiisa way wada islaameen markaas uu magaaladii Makka shaciir haw dirina buu xinta haw dirina buu ka joojiya mar allee markii ay maqleen reer Makka ninkii uu ka joojiyay raashinkii badacadii baad ascaarteedii ba kacday markaas ay Quraysh nabiga warqad u soo qortay ku dhawarayaan ay leeyihiin ya Muhammad diintaadi ma waxay ku faraysaa in riximkaaga aad goysid oo gaajo ku dishid markaa buu nabigu maqlay alayhi salaatu wasalaam markaas uu yiri Thamaama bin Athal buu nabigu warqad qoro wuxuu ku yiri tolka ilaahay baa soo hadayn doonee inooga sidaa buu ka raashinka u sidaa مساجد كساس وحوب الدلاء وما تربت في المسجد نبي عليه الصلاة والسلام صحابة ليسا رقا تاريخ ذو ما انت عالم قد لقوا وريري إلا ليهي حتى رقا سيدوين مرلا بادي من لهايين مشكلة دا عالم قتال يكا حلين لها بينا دين قال دي لها وين دار قرأته وخبراء لغو شيغي وركو روح كسو ururayna yiraahdaan Umar bin Khattab ninka la yiraahdo caalamka maanta iman laha mashkalada caalamka taala isagoo baxalin kari laha markay akhristeen siiradii Umar xagee ka soo baxay ragaas ayna taqarraju
والله عهدي نبينا عليه الصلاة والسلام مقالة مدينة مدارس قرآن كان لقى برتنا ميلهين معاهن ميلهين جامعة ميلهين ما شاء يمض وحكبرة المساجد بها مساجد ما شاء نبينا عليه الصلاة والسلام ومضى وكتر بيلين مسجد بعيد مسجد إمام كي مسلمين تا أمير كي مسلمين تا في علم الحديث أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر أي أنتو مسجد كي نبينا وكبحوا أي سوق أنتو تقوه رنجري ورواد خسارتين والخير باين دافع محانا دافع وحاول رنجري ورد حالك النبي قال لك قيبين أن أرضو قيبتنا كسوقات ميراث محمد يا بحالك النبي قال مسجد قال لكم قيب سنة يا مركز سيداتك قال لين إلا عقل قيب سنة يوم لأنه هو الصوياعين مساجد كيما يمادين واحد يقول لك قيبين يمركي أركي وايين أي أبا هريرة ولي هالكي تاغن والجولات كي الزيارات كي السمينة أي كوير هذا يا أبا هريرة مساجد كي وانت بني واحد حلو الله قيبين يمنو أركي مركز سوري مساجد كي ما تكتينها وانت بني وأحد من مسجد كي كما تركن ما هي مسجد كدوي جوجين dadka مسجد jooga maxay sameeyeen bali sheeg buu wallahi quraan bay akhrisanayeen qaar salaaday tukanayeen qaar ilaahay bay baryayeen qaar cilmigay baranayeen markaa buu waad khasartay buu ذاك ميراث محمد عليه الصلاه والسلام نبي محمد عليه الصلاه والسلام dhaxalku umadiisa uga tagay waa shaqada مسجدka ku soo aragteen buu inna ma'shara al-anbiya la nuwarrithu dinaran wala dirhaman annaku haddaan ururkii ambiyada nahay buu rasuulku yidhi diinaar iyo dirham lanagama dhaxlo buu rasuulku yidhi annaga waxaa lanaga dhaxlaa buu nebigu yidhi cilmiga laga dhaxlo nebiyada cilmiga xidhiidhka ilaahay iyo bini aadanka ka dhexeeya nebiyada laga dhaxla nebi lacag laga dhaxlay qur-aanku ma sheegin nebiyada waxaa laga dhaxlaa ilaahay macrifadiisa laga dhaxlaa diinta ayaa laga dhaxlaa dareenka aakhirada ayaa laga dhaxlaa adduunyadan iyo aakhiro wixii qofku ku hagaagayay ayaa nebiyada laga dhaxlaa markaa buu nebigu leeyahay annaku haddaan ambiyadii aan nahay diinaar iyo dirham lanagama dhaxlo waxaa lanaga dhaxlaa buu rasuulku yidhi maaragtaanay cilm ninka cilmiga qaatana nasiib weyn buu qaatay buu rasuulku yidhi faman akhadahu bixadin waafir buu nebigu yidhi أنبياء علمي لقد أحلوا معي علاقة مع الله بلقد أحلى معلم بالنبي عليه الصلاة والسلام مسكت كسوق علي وحوار كان نرر بادية والصلاة كناية والصلاة دي نحن دنا كدو عيسناية واشتاق النبي مركز دعاء دي بولا جيست ودعاء عجيبة دعاء بقول السجاشن وإلهي أمانتيس يا من لا تراه العيون ولا تخالده الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر يا من يعلم مثاقيل الجبال إلى آخر كيغا مركب النبي قد أبا موسى الأشعري بو يروح كيري نكا دعاء مركب دما يكن بو كيدي مركب الله يرى نكي نبي قد دونا ينمرك مرحبا مركب النبي صلى الله عليه وسلم غنيمة مركب الله صوب قاعدة وحوله مركب وقيبين أيو كيش لعاق انتو كسو ده قادب النبي نكي قعنتك قردي نين باهن وفقير والربادية وكوس لعاق اللودي بكورنا ساسو وقلبي وفرحي مرقاب النبي كويري لعاقتا سببت أن كوسي يمات قرم بوكيري مرقاب سوري ها محاضو ملينا كوسي ده تولي ما دي سيسيبيري مرقاب النبي كويري وارنتا رحمكن حق وإليه وحلس كوسية لكن لعقت وجدد كوسية وحويان بحسن ثنائك على الله سدع هدر تور إله يعدو أمان يسي آية كفر حب رسولك تادر تبنى كوسية بولي سدع الله هو بريس سدع الله هو أمان يسي وايو مقصود كالنبي أدوية الله كينبا أها إني بني آذن كإله كحران markuu arkay nabigu shaqadiisii oo socota oo ku farxay nabigu kaleey salaatu wasalaam dana uu siiyay
تعلق إلهي دتكو أي لليهين بنبي أكتس كوينه لعبت أكتس كموين حتى في سيرة عمر وعقوت الله غنيمتي أيوم مال ما كمد عمر دون فريستي مرقاسو قيبنا يا صحابة مرقاسو أركيني يرجع عنقوان مرقاسو لي قعنت المحاك هاجو يقولوا حر غزودي حلقة صحي أيا داوع عن لي جيستي بيقولوا كل داوع عمي مرقاسو العقد عمر سوق هذا كم بوسية كم كانوا قدر هذا مرقاسو عمر أو قيبيا سجن ولي ماشوا تاجي العقد مترسنا يعني مرقاسو عمر نيكي إيش أقول افتهادنا مرة لبعض مرة اللي مرق داوعي أركو أيو سوق هذا كم كانوا هذا للسيا مرقاسو عمر هذا أو قيبيا مرقابو هذا إيش أقول افتهالك يركب قاعد داوعك قدعي مرقابو كم كانوا قالوا أو تريا أو سيا مرقابو عمر مركب أو يكيرا مركاسا لغيرو عمر بن ورنيكي ماشي جوجي مي وحال حولها ادسي سببني ذا اي لبا وخيو وكسعد ماشي والله ما قد ارتبر عمر بن الخطاب هذو نيكا halka si joogi laha oo isheedu mar walba nabarka diinta ilaahay loogu dhaawacay isheedu ku dhici lahayd xoolaha halka ayaa la isaga ku dhameyn lahaa buu man ilaahay dartii u caawirnay oo diinta dadaalkeega iyo koryeelkeega iyo difaaceega loo dhaawacay baan adduunyo ka haysan buu anigu may wallahi waan ku bixin lahaa buu meesha yaalo dhanba dadku inay ilaahay jalla wa ala ku xirmaan ba muhiimadu ay tahay jannada dhan ee adduunyaduna waa ilaahay macrifadiisa imaam ghazali rahimahullah ayaa oran jiray jannada adduunyadu waa ilaahay macrifadiisa ilaahay garo bas sirta nolosha raadinaya bay koran Soomaalidu imika xageed ka raadin dhoof xageed ka raadin lacag baan sameeynaa lacag sirta nolosha ragii fahmay baa ku sheegay dhageyso imaam ghazali rahimahullah wuxuu yiri jannada adduunyada ninkii doonayo waa ilaahay macrifadiisa hal jannada aakhiraduna waa ilaahay aragtidiisa bas laakiin nabigu laha sallallahu alayhi wasallam أهل الجنة مركز الجنة قالان إلهي باكو أرندونا تريدون شيئا أزيدكم مرتان شيء كلو جنة هاي وحكلو جنة هاي وأن إني قدروا مركز أهل الجنة ورنيان ألم تبيض وجوهنا وتدخلنا الجنة وتنجنا من النار يا رب مياد وجيا شيء نوع عبدين ونار تابي نجبت بادن وجنة علينا أن نجلن واحد جنة كفل لبدن بالله علي فيكشف الحجاب النبي إلهي وحسك قاضي يا حجابك فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم النبي يقول أهل الجنة لمسين وحدوا قالوا القعيلة بدن يحي إلهي جل وعلا داو شديس مرك إلهي ذات ديس أي أركان إلهي الجمال كيس جل وعلا إيا كمال كيس مرك الجنة بحدة كو أركان جنة أي كو جيران يحور العيتي والحلمام ينبع مرك الجنة أدو يدو وإلهي معرفة ديس نرشنا أدو يد السرت يدو معي إلهي قرأ معناه قوام معي مقصود كي وجدت يا دويد اللغو كان قرأ هدف اللغو كان قرأ هدف اللغو كان قوام معي إلهي عبد إلهي بري إلهي بعيد على وشيبه إلهي ويديسو عدك لو أحبها ويديسن إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك هذا ويديسن النبي يقول يا إلهي وحو ويديسو احفظ الله يحفظك إلهي إلهي أمر كيسا هذا إلهي باكو إلهي المركز إلهي هدان إلهي سلام كيسا إلهي باكو إلهي سنو دونو كو إلهي ماشو دونو كو إلهي إبراهيم عليه السلام دبدا هذا لغو إلهي موسى عليه السلام قصر فرعون أيا لغو دح إلهي يونس عليه السلام على شكلهم قد هذا لغو إلهي محمد عليه السلام غارب بد كده هذا لغو إلهي قرآن كآخرصه قرآن هو بيانك إلهي بيانك مخلوق معها بيانك إلهي دقيسو
بيان، هذا بيان للناس. إلهي بصدا كله هذا إلهي أمر كي سعد إلى السد أياكو إلالين ياكو إلالين إلهي سدو كوكو إلالين سدو دونو ماشو دونو حلقو دونو إلهي أمر كي سعلالي بس صلاة وأمر كي إلهي صنك وأمر كي إلهي إسلام لمن وأمر كي إلهي أمر كي إلهي وكو أمر عدك إلالي بس مالك السور جوكت إلهي أمر كي سكو إلالي مع مسجد كده حدود كلية مالك السور جوكتو لولا السور دم بلا ربا إلهي كأنك كعب صوته بل يرمى إلهي كعب صوت ودعوين إلهي كعب صوته وفقر إلهي كعب صوت وغنى إلهي كعب صوت وسفر كاك إلهي كعب صوت وحضر كاك إلهي كعب صوت ومجتمع دحيم إلهي كعب صوت وخلورة إلهي كعب صوت مركز كلياتاي إلهي كعب صوت مسؤولية إلهي كعب صوت هذا إلهي أمر كي سعد إلى السد إلهي باكو إلالين 40 كالنووي قال جرداني رحمه الله شرح يسوح وكشر قصة عجيبة حديث كاس رابعة رضي الله عنها هبين يدو تكنيسة أيو ننتوك أقل كي يقول صوت عيبا لي مركاسو أركي هوين يسكت تكنيسة أو أن إن يرنا عن عبسنين ما عبسنيس وين مقاشا شنقدع إنو توك أقل كي صوت عيبا أركيسا لكن ما دقاقين ماشي دينك كما دقاقين صلاة دينك كما يبحن وعلى وحي أقلك على بطال على بوبي يقولني وحي اللي مركو ورصدوا يربح يردي وكسو قلبا كل نقطة مارة ثانية جدار بيكون نقطة دربي مركاسو يا وصار نقضي حدنا وحوري هالكاد كسو قشي هالكاد كسو قشي معين الباب كفرين هو أركا مرة اللي مركو الباب كسو قارنا وحو أركا الباب كحرم دربي ومضحة كل دفتة جدار مركاسو يا هذا أوصل هو دركشة كي ودبوقات دركسيوني مركاسو هل كيلو سلي وقت هالكاد كسو قشي فرنا كبح مركو قارنا ماشي وحرنت هايبا alaabtii uu sitay oo dhan buu u dhigay baa leeyahay ilaa salaada ay ka baxaysay iyadii uu sugay wuxuu kolka salaada ka baxday buu ku yiri wixii aan ka qaato aniga ku dhigay albaabka halkuu iga xigay sheeg buu ka yiri 40 ka nawawiga ayuu ku sheegay jardani sharaxaas qasadaas markaas ay ku tiri anigu albaabka ma xirin albaabka xagga sare laga xidhaa beetan xagga sare ma doonaysa in albaabka laga furo haa toobadkan bay ku tiri ballan qaad ilaahay inaad u noqonayso oo dambi aad ku dhacay oo tuugada aad dhaafayso ilaahay u ballan qaad oo iga ballan buuri maanta laga bilaabo inaad toobad keeno hal mar kaliya markuu sida ay tiri albaabku waa kaasa ka bax albaabkii buu ka baxay way sujuudo waxay tiri yaa rabbi anigu waa ka qoloftiisii waa soo jeediyay qalbigiisa adiga ku shaqal ilaahu qalbigiisa soo jeedi bay ku tiri